السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي وعشر كيني سنوات قريبينتا. عاو حنكون سوقان دونا تسالوين كوكوبان أو أرضي وكسي فهمي كرا حسابات كله. وحن سوقاننا لبجد ولو قريبين يهلجد. يعني تسالين كل هذا متجنو. وحي كدي جنت هاي طبعا ولو قريبي لابو. qaab badan oo loo qoro waan soo sheegnay soo qaab badan baa loo qori karaa sida 10 oo calaamadii u qaybinta oo tan ah calaamadii u qaybinta oo tan ah 10 oo loo qaybiyay labo qaabkaas kale oo qori karnaa waan soo marka waxaan soo sheegnaa ama waxaan mataqaanaa idin xasuusinayaa hadii banaanka uu hal god yaalo hal god oo banaanka yaala gudaha waa ina hal god oo kamid ah gudaha u qaybisi saas weeye hadduu qaybsami waayo lambarka ku xiga baa soo qaadanaysa lambarka ku xiga baa isku qabanaysa labadooda hadhow isku qaybinaysa tusaale ahaan oo kale banaanka waxa noo yaala hal god baa noo yaala laba way soo gudahana laba god baa yaala soo laakiin waxaan sheegnay haddii banaanku hal god u yaalo gudahana hal god oo kamid ah soo qabsanaysa hadhow waa isku fiirinaysa inay isku qaybsamaan ama inay isku qaybsamaan in kale oo isku fiirinaysa hadda hal mu u qaybsamaa labo uma qaybsamo macnaha hal oo loo qaybiyo labo waxa ka dhigan tahay baan in laba arday hal qalin uu qaybsamin karaa ama uma qaybsamin karo saadarteed waxaan soo qaadanaa man lambar ku xiga oo eber marka waxa isku noqonaysaa halkii waxaan ku darsanay eber baa ku darsanay maxay isku noqotay 10 marka 10 oo loo qaybiyo labo macnaha waxa ka dhigan tahay laba arday 10 qalin hadii loo qaybiyo mid walba muxuu heli karaa ma u qaybsamaa marka hore uu qaybsamaa haye mid walba intee buu heli karaa doo soo saarayna taasan ka baahaya taasan ku saarna waxa dhaynaa niri waxa ii sheegtaan tiro markii labo lagu dhufto macnaa labo tiro markii lagu dhufto keenaysa tiro lagu dhufto labo oo keenaysa 10 ba u baahana arday garanaya wuxuu dhigi ka labo hal lagu dhufto labo lagu dhufto labo afar labo lagu dhufto 3 waa 6 labo afar lagu dhufto 8 labo 5 lagu dhufto waa 10 marka muxuu saaray halkan 5 buu saaraya هي لو شن لو قلت انت ويه و10 طبعا كما قرنو maxaa sameeynaa 10 kama ka qorno waxa sameeynaa waa kala jareynaa soo kala jareynaa dhanka mid ba ka bilaabay eber laga jaray maxaa weeye ardayay waa eber hal laga jarayna waa eber soo dad hal kun adoo haystay adaa wax ku gadatid halka kun ka tagay eber bay noqonaysaa 24 loo qabiyo laba taala 10 keeni ay tusaaleena kood waxaan ku sheegnay in hadii banaanka hal god uu yaalo gudahana ma taqaanaa hal god loo qaybinayo hadda labada banaanka noo tala Soomaan gudahana 24 baa nagu jira marka hore lamar laba soo qaadana hal god ba soo qaadana oo laba ah waxa dhaynaa laba ma u qaybsantaa macnaha laba gabdhood hadii loo laba ma taqaanaa laba xijaab ah ma u qaybsamaa marka hore aan laba gabdhood baan waxaan rabnaa inaan siino laba xijaab gabar walba intee xijaab helaysaa gabar walba hal xijaab helaysaa saan karna Soomaan marka u qaybsantaa sidoo hore marka hore waxaad hadan tusaaleyn hal qalin ma u qaybsami kara laba arday may sababta laba arday hal qalin labada arday baa tiro badan Soomaan hal qalin lama kala jibinayo marka hadda laakiin waa laba gabdhood oo loo qaybin laba xijaab mid walba hal xijaab ay qaadanaysaa ku filanta marka waxaan dhaynaa hal xijaab ay qaadan halkiiba kor saarayna maxay noqonaysaa laba oo hal lagu dhufto bay ka dhiganta laba hal lagu dhufto intee weeye waa labo marka waa kala jarnaa marka labadan afarta ma soo qaadano waa kala jarnaa marka hore maxaan dhaynaa laba laga jaray maxaa weeye waa eber markaas waxaan sameeynaa afarta la soo deginaa marka afarta la soo waxaan dhahaynaa afar xijaab ah laba gabdhood u qaybi laba gabdhood hadaan afar xijaab u qaybinaya gabar walba intee xijaab ay qaadanaysaa labada gabdhood mid walba intee xijaab ay qaadanaysaa waxaan garan karnaa in labada gabdhood mid walba laba qaadan Soomaan hadaa soo saari weyd wax dhahaysaa laba oo tiro lagu dhuftay oo afar keensa waa tee weey macna laba oo lagu dhuftay tiro maqan oo la mid ah afar ma haysa ma garanaysaa ardayo waa garanaya soo sheeg waa labo maxaa ku soo dhaw waxana laba hal lagu dhuftay waa labo laba lagu dhuftayna waa afar waa garanaya waxa dhahaysaa xagan laba saar marka in waa laba oo laba lagu dhuftay maxaa soo baxa afar baa soo baxa hoosta ka xariiqaysa waa kala jaraysa marka afar laga jaray maxaa weeye waa eber waa garanaa taas hadaa rabtid inaad hubisid maxaa dhahaysaa
labadan baa waxa ku dhufanaysaa 12 macna 12 se lagu dhufanaya sidii ku dhufashadan ku soo dhiganay baa ugu dhufanaysaa waxa dhaysaa laba lagu dhufto maxaa weeye waa 4 laba hal lagu dhuftayna waa 2 maxaa soo baxay 24 baa noo soo baxay halkaana maxaa noo yaalay 24 baa noo yaalay saas jawaabtu sax ku noqonaysaa halka waxa noo taala 16 oo loo qaybiyay 4 banaanka hal god baa yaala gudaha laba god baa ku jira sharciguna wuxuu ahaa hadii banaanku hal god yaalo in gudaha hal god loo qaybiyo laakiin haddeer hal baa gudaha hadaan hal soo qaadanay hal baa ugu horeeyay hal iyo 4 isku qaybsamaan sababtoo tirada banaanka taala waxay tilmaamaysaa dadka wax qaybsanaya Soomahan gudahana waxay tilmaamaysaa waxa la qaybsanayo marka hadii halkan 16 buug ay yaalaan halkaana ay taalo 4 mataan arday 4 arday 16 buug way qaybsami karaan Soomahan waa sax laakiin hadaan dhahno 4 arday hal buug muu qaybsami karaa ma qaybsami karo sadarteed waxaan dhahaynaa halka iyo 6 isku qabanaa maxay isku noqonayaan 16 isku noqonayaan 16 buug 4 arday mid walba intee buu qaadan karaa buug markaas dhahaynaa hadaa ku dhufsho taqaan waxa 4 hal lagu dhufto 4 hal lagu dhufto 4 4 laba lagu dhufto 8 4 lagu dhufto 3 waa 12 4 lagu dhuftayna waa 16 marka maxaa u saaranaa 16 maxaa keenaya 4 lagu dhuftay ardayo muxuu la mid ahayd marka ku dhufsho soo dhiganay 16 bay la mid tahay 16 waa qoraysa marka maxaa sameeyay marka arday maxaa sameeyay waa kala jaraysa halka marka milisid maxaa dhahaysaa banli 6 laga jaray waa intee weeye waa eber hal laga jarayna waa eber saas jawaabtu ku soo baxday jawaabtu 4 lagu dhuftay waxa keenaysa 16 tusaaleena saddexaad wuxuu noqonaysaa 18 loo qaybiyo 3 laakiin banaanka maxaa noo yaala hal god baa noo yaala sadarteed gudaha waxaan ka rabaa inaan hal u qaybino laakiin nasiib daro hal iyo 3 waxa weyn 3 baa weyn uma qaybsami karo macna hal qalin 3 arday uma qaybsami karaa uma qaybsami karo sadarteed hal iyo 8 bas ku qabanaa maxay isku noqonayaan 18 loo qaybiyay 3 intee bay noqonaysaa waxaan ku fikirinaa marka hore sharciyeena oo hara oo sharciga aan soo sheegnay ama qodobkan soo sheegnay oo ahaa ku dhufasho isku qaybintu waxay lid ku tahay isku dhufashada ama u qaybintu waxay lid ku tahay ku dhufashada waxa dhahaynaa marka tiro 3 oo tiro lagu dhuftay oo la mid ah 18 waa tirdee ardaygu garanaya 3 lagu dhufto waa 3 lagu dhufto 2 waa 6 3 lagu dhufto waa 9 3 lagu dhufto 4 waa 12 3 lagu 3 lagu dhufto waa 15 3 lagu dhufto waa intee 18 marka 3 6 soo saarina meesha waxa dhahaynaa 3 lagu dhufto intee weeye waa 18 ba dhahaynaa marka maxaa sameeynaa waa kala jarnaa calaamada ka jarta haylaawin ardayo 8 laga jaray intee weeye waa eber hal laga jarayna waa eber saas ku soo baxday 3 lagu dhufto adarta inay hubisno waxa dhahaysaa 6 baa soo qaadanaysaa 3 baa ku dhufanaysaa 3 lagu dhufto intee weeye waa 18 halkaana 18 baa noo taal jawaabtu waa sax saas ku soo baxaysaa halka waxa noo taala 20 oo loo qaybiyay 5 laakiin banaanka hal god baa yaala gudahana laba god baa taala ina waa 1 iyo 2 labada god baa taala banaankana hal god baa noo yaala waa 5 laakiin 2 iyo 5 isku qaybsamaan sababta labada koreeya markan waxay ka dhigan tahay 2 oo loo qaybiyay 5 marka mataqana 2 tufaaxa ama 2 nanac 5 wiil oo yar ah muu qaybin karaa uma qaybsamin karo macna ada usjibisa waa macquul taas loo jibin karaa jajab uu gali karaa laakiin adoon si isla u kala qaybinaya arday walba matala ilmahaas uma qaybsamin kadib sadarteed ma dhahaysaa waxa dhahaysaa labadan isku qabo labada iyo eberka isku qabo maxay isku noqonaysaa 20 loo qaybiyay 5 meeqa ay noqonaysaa ama hadaan tusaan u soo qaadano 20 mataqana moos waxa u qaybisaa 5 wiil oo yar u qaybi mid walba intee moos buu qaadanaya waxa dhahaynaa waxaan taxaynaa marka hore tirooyinka 5 lagu dhufto sababtoo halkan waxaan ka rabaa inaan dhahno tiro 5 oo lagu dhufto tiro maqan oo 20 keenis waa tiradee waa fakir waxa dhahaynaa 5 oo hal lagu dhufto waa 5 oo lagu dhufto 2 waa 10 5 oo lagu dhufto imtixaan 3 waa 15 5 oo 4 lagu dhufto waa 20 hadda 4 baa halkan saarina 4 noo saar 5 4 lagu dhufto intee weeye waa 20 weeye marka maxaa marka sameeynaa hoos ba ka xariiqina waa kala jarana waxa dhahaynaa eber laga jiro waxa weeye waa eber 2 oo 2 laga jarana waa eber maxaa soo baxay saas ku soo baxday
hadaarta inuu hubisna waxa dhaysa 5 ruuti 4 waa intee weeye waxa ku soo baxaysa 20 sidaas jawaab sax ku soo noqonaysa marka ardayow adiga waxa samaysaa inaad ku celisid xisaabta mataqana isku day mar walba aad mataqana tusaalooyin badan aad soo qaadatid aad ku celisid waa mar walba ay xisaabta mataqana isku qaybinta ay ku fududaato marka waxaan kula talin lahaa inaad ku celisid ila aad mataqana si fiican u fahmaysid aad u fahmaysay insha Allah taala tusaalooyinkeena waa ka sii badin doona intaas ardaygu hadduu san u fahmo qaabkan looga shaqeynayo marka dambe kuwa kale uu ka sii fahmi karaa oo si fiican insha Allah taala buu fahmi doonaa marka aadna waxa sameynaysaa inaad ku celisid xisaabtan joogtee ku inta badan waxay ku keenaysaa ama ku faa'iideynaysaa inaad xisaabta maskaxdaada gasho oo hadhow si fudud ku xalisid insha Allah taala casharadena kale ba insha Allah taala ayadoo si fiican loo sii xalinayo ama mataqana aan ka sii fududeyn doono ama tusaalooyinka ba insha Allah taala qadan doona ama ha noqoto 3 god oo hal god loo qaybinayo saasa ku sii wadi doona ardaygu mataqana haduu hal god uu ku fahmo hadhow 2 god oo banaanka taala tirooyin gudaha taalo oo mataqana ama 4 god ah ama 5 god ah uu qaybin kara marka insha Allah taala sidaas baan ku sii wadi doonaa